xaaska madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa ay sheegtay in ninkeeda lagu jirdilay jeelka lagu hayay magaalada Addis Ababa. booliska federaalka Itoobiya oo BBC-da ay la hadashayse arrintaasi waa uu beeniyay. Haddaba Sadiiqa Cabdi Ismaaciil ayaa khadka taleefanka Addis Ababa waxay ugu warantay wariyahayaga Cabdisaaq Xaaji Catoosh. labadii iyo barkii adoo ay 10 daqiiqo laabay 9kii galabnimo ayaanu qaybadii u geynay annagoo gurigii waan soo deganaa dabaqa labaad saadan ugu baxnay aan aragnay qolkii 20 nin ay ka intay ku dhaheen bustayaashii iyo wixii ku jiifay iyo gogoshii intay aruuriyaan bustayaashii qaar u dhiibay marka waan la hadlo xageed u wadaan baan dhahnay marka guriga loo bedelayaa bay nagu dhaheen beed kolka ooyadii abriirtii gabadh kale oo gabadha khabaraan weyna la socotay markaasaan markayna loo bedelayaa iyo waan raacayna waan arkaynaa gurigaad geenisan cuntadiina waan u wadnay qadadii indharaan u wadnay saadan marka ugu baxnay jaranjaradii leen wadaba waa ka labaad oo jaranjar u leeyahay jaranjaradii lugta uu saaray horta labadiisa lugood ay uga qaadeen gab ani aan hor orodnay gabadhii kale way la soo qayliyey dadkii baa iskugu soo baxay marka arrintaasay ku dhacay dhulku dhawaaqay way dileen buradbay la dhaceen madaxay ka dileen annaga waan ooynay ooyadii way jiidatay wasa inay ku dul dhacday damceen way iska dhifteen halkaasoo kale gabadhii ila socotay hooyadii habaryartii ku tuureen waan daba ooynay way jiideen markii dambe isagoon dhaqaaqaynin oo xubin dhaqaaqdaan layn bay jiideen gabadhii khabar iyo hooyaa daba orday meel boosaneer ah oo irida kora ah oo banaanka kore jeelka ah boosaneerka laga jiido saxarada kolka ay ku qiyaastay gabadhii inay u sii baneeyeen ugu talagaleen bay ku rideen shanqar iyo dhaqaaqna ma lahayn Cabdi Maxamuud Cumar. boolisku marka maxay isticmaalayeen oo ay ku garaacayeen burga gaaban bay la dhacayeen marka laba meelood madaxa inay dhiigtay baan u maleynaynay halka dhabarkana aad bay uga qaraacay waayo saas u foorasoo madaxiibu ka yaraa gadiyey. yaa garaacayay marka askartidaa samaynaysa askarti booliskii federaal booliskii cidnaba kama maqayn. waxaan aad sheegaysaa xaggey ka dhacayeen ma meeshuu ku xirnaa mise bannaanka kore boolisku ku xidhnaa weeyaan soosanyaa baa la dhahaa soosanyaa kaakalanya adiga maadaama xaaskiisa aad tahay intuu xirnaa xabsiga ma ku booqan jirtay haa xaalkiisa siduu ahaa markaa xaalkiisa dee nin dhiikar qabo dawadii loo diidayoo murugo ka muuqato maalin walba lacaay anoo la fadhiya lacaayay TV baanu kaa daawanay inta qolo ku dulaayeen ayay ahayd xaaladiisu way iska caafimaadna way iska xumayd marka dee aragtidii iyo hadalkiian 10 daqiiqa naloo ogolaa 10 daqiiqaani la ii ogolaa arko oon salaamo. Sadiiqa Cabdi Ismaaciil oo u dhaxda madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo u waramaysay wariyahayaga Cabdisaaq Xaaji Catoosh. dhanka kale booliska federaalka ee dalka Itoobiya ayaa beeniyay inay ninkaasi wax dhibaato ah u geysteen. General Zeyuni Jamal waa taliyaha booliska federaalka Itoobiya maruu eedeymahaas ka jawaabayeen waxa uu BBC-da u sheegay. waa been ma jirto cid dilayso inkasta oo loo haysta dembiye halis ah haddana maadaama uu yahay madaxweyne hore si wanaagsan ayaa loola dhaqmayaa tan xanuunkana waxaa jira kalkaaliyaal jooga kliinika ku dhex yeela xabsiga haddii uu xanuunka weynaadana ayagaa u gudbinaya isbitaalka xanaanka ayaa sidaasi ah lagamana tallaabsan karo. General Zeyinu Jamal taliyaha booliska federaalka ee dalka Itoobiya ayuu kaasi ahaa oo BBC-da u waramayay.